ugu horeen waxaan ka codsanahay muuqaalka like saarto runtii wax badan ay naga caawinaysaa sidoo kalena inagu soo biir uga filimka koox rag ah ayaa dhismo soo galaya ayagana waxay u muuqdeen kuba raadinaya wax muhiim ah isla xilligaasna dhismaha ayaa dhaqdhaqaaq sameynaya sida in dhul gariir u dhacayba kooxdanna ayagoo argagaxsan ay intaa kadib banaanka soo aadayaan balse waxay arkayaan magaalada oo isbedeshay magaaladan oo ahaydna daqiiqada ka hor mid qurux badan hadda waxaa dhulka dhigay nuclear bomb waxayna u muuqataa sida in dagaal kale uu adduunka ka bilaabmay sabab jirtay awgeedna dhismihii ay ku jireen ayaa noqonaya midka keliya ay ka badbaaday magaalada ayagana durbadiiba ayagoo argagaxsan ay intaa kadib dib ugu soo laabanayaan dhismaha waxayna u malaynayaan inay riyo ku jiraanba ayagan intaa kadib hurdo ayay galayaan si ay xaaladda isku dhaafsiyaan kadib 36 saacne mar kale ay haddana dhulgaliir kale maqlayaan markana magaalada ayaa isku bedelaysaa mid aad uga horumarsan sida ay ahayd lacagta ayaan hadda noqonaysaa mid laga tagay wax walbana fingerprint ayaa lagu iibsanayaa kooxdan waxay aamini weynayaan sida isbedelkan xawliga ah uu ku dhacay ugu dambeyntiina waxay ogaanayaan in dhismahan uu u gudbanayo duni kale 36 saac kasta intaas kadibna waxaa noola qaadaya sida ay wax walba ku bilaabmeen ronan wuxuu ahaa boxer dadaal badan halka walaashiisa beatrix ay ahayd ardayd jaamacad dhigata labadoodana ma aysan wada xiriirin muddo aad u badan balse maanta waxay fariin ka helayaan aabbahooda alex isaga ayaana ka codsanaya inay kulmaan sidoo kalena wuxuu u sheegayaa dhismaha ay ku kulmayaan kaasoona ku yaalay bartamaha magaalada waxaana soo baxaysa inuu yahay isla dhismihii uu ku bilaabmay filimka inkastoona labadan walaale aysan ku faraxsaneen la kulanka aabbahoodii cidleeyey haddana way ka aqbalayaan kulankiisa markay imaadeenna gurigiisa labadooda way ka weynayaan aabbahooda intaas kadibna waxay ka fiirinayaan geerashka gaariga halkaasna beatrix saaxiibkiisa harry ayay kula kulmayaan isagana aabbahooda ayuu la raadinayaa durbadiina kooxda ayaa helaya alex jacketkiisa ayagana waxay ku dhex arkayaan kubad aysan garanaynin sidoo kalena warqad newspaper ah ayay ku arkayaan taasoona ay ku qorneyd in bill clinton la afduubtay tanina waxay ahayd mid xiise leh maadaama madaxweynihii hore ee maraykanka uu weli nool yahay xoogaa kadibna labadan walaalaha ah waxay aadayaan xarunta booliiska si ay u ogeysiiyaan waayitaanka aabbahooda si kastaba ha ahaatee marka laga dhegaystay warbixintooda sarkaal stone wuxuu u sheegayaa inuu xoogaa caawin karo maadaama aysan hubin waayitaanka aabbahooda marka ay intaa maqleenna ronan wuxuu u sheegayaa dhismihii uu aabbihiisa ku balamiyey balse sarkaalkan ayaa u sheegaya in dhismahaas aysan cidna deganeen xoogaa kadibna saddexdooda ayaa imaanaya dhismihii ayagana way xaqiiqsanayaan inaysan cidna joogin si kastaba ha ahaatee derbiga waxaa ka muuqday sawiro kala gedisan taasoona caddaynaysa taariikho kala duwan oo hore u soo dhacay tusaale hal qoraal ayaa sheegaya in argagixisada ay diyaarado ku weerareen daarihii mataanaha ahaa 23 oktoobar 2001 ayagana waxay dhab ahaantii ku weerarayaan sida argagixisada ay ku awooday weerarkaas qoraal kalena wuxuu sheegayaa inay ka fogaadaan dhulka 33aad maadaama uu ku bahay cudur dilaa ah halka qoraal kalena uu sheegayo in dhulka 468aad uu yahayba mid ammaan ah halkan waxaa soo baxaysa inay jiraan noocyo kala duwan oo dunida ah kaasoon ay dhacdooyin kala duwan ka dhacayaan si lama filaan ahna saddexdooda waxay maqlayaan cod qaylinaya tanina dhismaha ay ka dhigaysaa inuu dhaqdhaqaaqo marka ay isku dayaanna inay baxsadaan waxaa soo baxaysa in albaabka uu ku xirmay xoogaa kadibna waxaa u suurgalaysa inay ka baxaan dhismaha balse dhismaha ayaa geenaya duni uu nuclearka baabi'iyey durbadiina waxay arkayaan dad lugeynaya iyagana caawinaad ay weydiisanayaan balse dadkan ayaa biskoolad ku aadinaya si lama filaan ahna dadkii lugeynaya ayagana waxaa tooganaya rag kale kooxdanna intaa kadib argagax ayay dareemayaan iyagoona intaa kadib dhismaha u soo cararaya intaas kadibna harry wuxuu sheegaya inay jiraan noocyo kala duwan oo dunida ah tanina waa sababta uu dhismahan marba meel u geynayo tanina sidoo kale waxay caddaynaysaa xaqiiqda sawiradii ay hore derbiga ugu arkeen gudaha dhismaha waxay kula kulmayaan booli iyadana waxay ahayd qof ku safarta noocyada kala duwan ee dunida sidoo kalena waxay u sharaxaysaa sida dhismahan qofka ku jira uu u geynayo duni kale 36 saac kasta waxayna u soo jeedinaysaa ayaga inay iska joogaan dhismahan markay intaa maqleenna kooxda ayaa ugu dambeyntii go'aansanaya inay hurdaan si ay waqtiga isku dhaafsiyaan balse xoogaa kadib waxaa soo kicinaya rag aad u hubaysnaa muuqaalka xiga ronan iyo labada kale ayaa loo qaadaya dhismo u dhow
dhowaa ayaga. halkaasna waxay kula kulmeen hogaamiyaha burcada, waxaana la yaab noqonaysa in ninkan uu ahaaba sarkaal Stone. markii ay xoogaa wada hadleenna waxaa soo baxaysa in sarkaalkan uusan waxba ka ogeyn ku safarka noocyada kala duwan ee dunida. Boolina waxay go'aansanaysaa inaysanba u sheegin xog ku saabsan arrintaas. si kastaba ha ahaatee, Stone wuxuu u maleynayaa afartooda inay yihiinba kuwa jaajuus u ahaa koox kale oo cadow ay ahaayeen. intaas kadibna Tinker ayuu ku amraya inuu su'aalo weydiiyo ayaga. ugu horeyntiina Beatrix iyo Ronan ayaa laga bilaabayaa, balse ka hor intaan su'aalo la weydiinin, Beatrix ayaa cabasho ka muujinaysa in walaalkeeda uusan garab siinin kadib geerida hooyadooda. halkanna waxaa soo baxaysa in Ronan uu ka dambeeyay geerida hooyadooda maadaama uusan wax daryeel ah siinin ayada. si lama filaan ahne Tinker ayaa soo muuqanaya, waxaana soo baxaysa in ninkan uu yahay midka keliya ee wax ka ogaa dunidan isbadbedelaysa. isagana wuxuu shaaca ka qaadaya in dhulkan uu ahaaba mid cajiib ah oo lagu noolaan karay, balse hal mar ay isbedeshay kadib markii bam nuclear ah si qaldan loo iibiyey. tani ayaana sababtay burburka dhulka. Tinker wuxuu sidoo kale u sheegayaa ninka dhismaha ka soo saaray bamka nuclearka. Tinker ayaana qaab muuqaal ah u tusinaya, balse Ronan ayaa la yaabaya in ninkan boorsada keenay uu yahayba aabbahooda Alex ayaana ahaa qofka sababay in nuclearka uu qarxo. ayada oo labadan walaalaha ah daawanayana, Tinker wuxuu noqonayaa mid xanaaqiisa uu sii kordho. labadan walaalo ayuuna ugu hanjabaya inay u sheegaan halka uu joogo aabbahooda. Beatrix waxay isku dayaysaa inay ka dhaadhiciso inaysanba wax ka ogeyn halka uu joogo, balse ninkan ma dhegaysanayo hadalkeeda. marka uu isku dayana inuu biskoolad Ronan ku qabto, Ronan ayaa xirfadiisa dagaalka u adeegsanaya, kadibna wuxuu jibinayaa bartii ku xirneed, wuxuuna sidoo kale caawinayaa Beatrix. dhanka kale marka Tinker uu soo toosay, wuxuu bilaabaya inuu bam active ka dhigo. markay intaa arkeenna, Ronan feer ayuu intaa kadib la dhacayaa. kadibna labadan walaalo waxay sii deynayaan saaxiibadooda, iyagoona mar kale u cararaya dhinaca iyo dhismaha. xoogaa kadib Stone ayaa ogaanaya bamka, isagana wuxuu ku amrayaa in Tinker uu damiyo, balse Tinker wuu diidayaa, wuxuuna u soo bandhigayaa qorshihiisa ku aadan inuu ku burburin rabo dhismihii cajiibka ahaa. dhanka kalena Ronan iyo asxaabtiisa gaariga ayaa wadada uga damaya, waxayna ku qasbanaanayaan inay lugeeyaan inta uga dhiman dhismaha. markay u soo dhawaadeenna, durbadiiba Tinker ayaa ka daba imaanaya, isagoona hore u soo qaatay bomkiisa. nasiib wanaagna dhismaha ayaa u gudbanaya duni kale ka hor inta uusan bamka qarxin. Harry wuxuu rajeynayay inay ku laaban doonaan dunida caadiga ah, balse waxay is arkayaan iyagoo jooga duni iyo tiknoolajiyada aad u horumartay. tusaale ahaan, laptopska waxay ahayn kuwa laga dhex arki karo wax walba. kooxdan waxay u muuqataa inay u safreen mustaqbalka, iyagana si ay wax badan u ogaadaan way iskala qaybanayaan intaa kadib. balse waxaa soo baxaysa in Tinker uu sidoo kaleba joogo dunidan. inta wadada ku jireenna, Harry ayaa isku dayaya inuu wax iibsado, isagana wuxuu ogaanayaa in wax walba lagu iibinayo fingerprint. marka uu iskaanka saarayna, wuxuu is ogaanayaa in dunidan uu taajir ka yahayba. isla markii ay dukaanka ka tageenna, Tinker ayaa isagana imaanaya, wuxuuna iibsanayaa qalab walba uu u baahan yahay, isagoona ku mashquulaya samaynta shay isaga gaar u ahaa. dhanka kale, Harry iyo Beatrix ayaa imaanaya guriga uu Harry lahaa, maadaama uu dunidan taajirka ahaa. ayagana waxay haakin garanayaan laptopkiisa. halkanna waxaa la yaab noqonaysaa in labada Harry ay lahaayeenba password isku mid ah dhinaca kombiyuutarka. intaas kadib marka Beatrix ay baaritaan samaysay, waxaa soo baxaysa in aabbahooda Alex marka loo eego dunidan uu dhintayba 3 bil ka hor. dhanka kale, Ronan iyo Polly waxay baaritaan ku sameynayaan gurigii Alex uu deganaa. markay arkeen inaysan cidna joogin, Ronan ayaa intaa kadib soo saaraya kubaddii madoobeed. Polly isla markiiba way garowsanaysaa. xoogaa kadibna, Ronan wuxuu uga sheekeynaya wax ku saabsan yaraantiisa, maadaama uu ahaa mid aan dulqaad lahayn, sidoo kalena dagaal badan. Ronan wuxuu sidoo kale shaaca ka qaadayaa sababta uu dusha u saartay eedda dhimashada hooyadiisa. maalin isaga ayaa nin taraag waday wadada highwayga kula dagaalaya, xilliganna hooyadiisa oo kala celinaysay ma uusan dhegaysanaynin hadalkeeda. inta xaaladda lagu jirayna, hooyadiisa waxaa dardaraya gaari kale oo xabaare ku socday. wixii intaa ka dambeeyeyna, qoyskiisa ayaa noqday mid burburay. Ronan marka uu dhameeyeyna qisadiisa, Polly ayuu tusinaya gaariga uu lahaa aabihiisa. si lama filaan ahne, gudaha ayuu ku dhex arkaya qoraal u sheegaya inay si dhaqsi ah uga baxaan gurigan. si lama filaan ahne, gaari ayaa albaabka guriga istaagaya, waxaana soo baxaysa inay ahaayeen kooxdii tuugada ahaa. ayagana marka loo jawaabi waayey, gudaha
gudaha ayay soo galayaan balse Ronan iyo Polly ayaa si fudud uga adkaanaya intaas kadibna waxay qaadanayaan gaarigii ay tuugada wateen Tinker ugu dambeyn qorshihiisa ayaa u horgalaya isaguna xilligan sameeyay qalab uu ku maamulayo korontada guud ee magaalada intaas kadib qalabkan ayuu keenayaa meel u dhow dhismihii cajiibka ahaa durbadiina Ronan iyo Polly ayaa soo muuqanaya kadib iska hor imaad labadooda u dhaxeeyayna Tinker wuxuu daarayaa qalabkiisa isla xilligaasna Harry iyo Beatrix ayaa goobta imaanaya Ronan wuxuu bilaabayaa inuu Beatrix dajiyo maadaama uu ninkan raadinaya xaqiiqda dhabta ah ee isbedbedelka dunidan marka uu kooxda fasax ka helayna Tinker si toos ayuu qalabkiisa u daarayaa balse marka aysan dhismaha wax isbedel ah ku arkin Tinker xawaaraha qalabka ayuu kordhinayaa si uu markaa dhismaha u burburiyo balse ka hor arrintaas nin ayaa soo muuqanaya waxaana la yaab noqonaysa in ninkan uu ahaaba Alex naftirkiisa intaas kadib Alex ayaa Tinker u sheegaya inuu aado dabaqa afaraad halkaasna uu ka heli doono xaqiiqda dhabta ah isla markii uu Tinker baxayna Alex ayaa carruurtiisa u sheegaya in hooyadooda ay weli nooshahay ayagana ay muhiim tahay inay raadiyaan hooyadooda si lama filaan ahne Tinker ayaa mar kale soo laabanaya isaguna sheegaya in Alex uu been u sheegayba balse Alex xabad ayuu afka ka gelinaya Alex dhismaha ayuu ka baxayaa inkastoona ay carruurtiisa ka baryayeen inuu la jago ugu dambeyntiina dhismihii ayaa dib ugu soo celinaya dunida saxda ah dhammaan kooxda ayaana hubinaya bannaanka halka Polly ay qof gudaha ku sugaysay si lama filaan ahne laba kale oo Polly ah ayaa soo muuqanaysa kuwaasoona dhismaha isku qarinayay filimka ayaana ku dhammaanaya iyadoo saddexdan ciyaar ku kala baxaya ugu dambeynna hal qof ayaa soo aadaya dunida saxda ah halkaas ayuuna ku dhammaanaya filimka haddaba si uu ku soo gaaro muuqaalada noocan oo kale subscribe saar sidoo kale gambalka furo si aad mar walba u noqoto daawadaha ugu horeeya sidoo kalena like saar muuqaalka wax badan ay naga caawinaysaa mahadsanid